الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa hadda xoogaa isoo kiciyey arrinta ka dhacday beled xaawo ama buulo xaawo qofas u yaqaan. beled xaawo waa meel aan aqaano, waa dhulka Soomaaliyeed oo aan jeclahay dhammaantiisba, oo aan maray, oo aan seexday, oo wax ka cunay, oo wax ka qabtay, oo wax ka dhisay. waxaan xusuustaa habeen aan maray luuq iyo buulo xaawo inta u dhaxaysa, gaarigu intuu dhiiqa naga galay, aan habeenkii beled xaawo meel dhex u dhow sidaan u lugeynaynay roobna nagu daayay, oo annagoo ka nimi furitaanka macadkii ducaadda. rag badan oo ka baxay ama ka qalin jabiyey, waxaa laga yaabaa adduunka daafihiisa inay joogaan oo ka dhegaysanayaan ama ay gedaba joogaan. marka waa oo dhulka aad taqaanaa kaga dhow dhulka kale. arrinta xalay ka dhacday oo dagaalka ah, awalan waxaan jeclahay horta inaan u tacsiyeyo Soomaali oo dhan, gaar ahaana dadkii wax ku yeeloobay Soomaaliyeed ee muslimiinta ahaa ayaan u tacsiyeynayaa. weliba waxaa la ii sheegay markii aan la hadlay goobaha wax ka dhaceen, qoys madfac ku soo dhacay, dadkii weerarka ahaa ay soo rideen, ku habsaday madfac hoobiyaha ku habsaday, no loo meel dayin. 5 caruur ah baa ku dhintay, nin shantiisii caruurta ahayd. xaaskiina waxaa la yidhi koomay ku jirtaa, koomo. ilaahay subxaanahu wa tacaala musiibadiisa rabbi subxaanahu wa tacaala wax ka khayr badan ha ugu bedelo. ilaahayna subxaanahu wa tacaala samir iyo imaan ha siiyo, isaga iyo inta Soomaaliyeed baa dadka dhinteen. waxaa kaleeto la ii sheegay dhalinyarada lasoo khalday oo duulaanka soo qaaday, qolada weerarka ahayd, Soomaali bay kusoo duuleen. waa Soomaali ku duuleysa, waa ayaan daro. dhulkoodii lagu soo diray, qarankoodii iyo calankoodii iyo dhulkoodii kusoo duulaya. kadibna waxaa la ii sheegay goob keliya in 17 taqriiban wax ku dhow laga helay oo ku dhintay. dhalinyaradaas la soo khalday wey. nimanka soo diray ama dadka soo diray oo iyagu gadaal u fadhiya, ama Nairobi ha fadhiyaan, ama Mandheera ha fadhiyaan, ama meel kale ha fadhiyaan, ama Kismaayo ha fadhiyaan, kolley isma weydiinayaan caruurtaas dhimanaysa iyo dadkan dhimanaya iyo kuwan dhimanaya xaabay u yihiin agtooda. waa xaabo, waayo wax ka maqan oo laga dhacay geel iyo ari iyo lo iyo xoolo iyo dahab laga dhacay ma jiraan. nimanka wax soo diraya ama duulaanka soo diraya, dadka caruurtiisana waxay dab ugu shubaan ma yaalaan oo laga qaatay ma jirto. laakiin waxa weeye dulmiga socda uun bay ka mid tahay, oo Soomaali ayaan darrada haysata iyo bahasha sanamka ee qabyaaladda la yiraahdo ee la isugu soo dhunto, oo nin walba oo doonaya inuu dadka ku awrkacsado ama danihiisa ku gaaro uu maaragtay adeegsado. marka dhalinyaradaas maxay ku dhinteen? maxay u dhimanayeen? maxay u dagaalamayeen? yowm alqiyaama iyaga ka jawaabi doona. adduunkana haddii xisaabi timaado way ka jawaabi doonaan. waxaan rajaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu xisaabta adduunka iyo tan aakhira labadaba isugu daro. waan ilaahay ka baryay, oo adduunkana aanay maxkamadeeda iyo xisaabteeda ka fakan, tii aakhira waaba u dambaysaa. marka dhammaan dadkaasoo dhan tacsiib ay mudan yihiin. dadka caruurtoodu saa ay ugu dhinteen. waxaa kaloo tacsiib mudan Soomaalida arrimahaasoo kaleeto taageerayo, qabyaalad ku taageeraya. iyaga laftigoodu dad nool maaha, waa dad dhintay. Soomaali qabiil baa dilay, Soomaali qabiil baa baabi'iyey, Soomaali qabiil baa qarannimadeedii dumiyey, Soomaali qabiil baa calankeeda hoos u dhigay. Soomaali adduunka waxaa ka reebay qabyaalad baa ka reebtay. Soomaali adduunka waxay halka la taalo, meesha ay taalo maanta qabyaaladda weeye, iyo waa reer hebel, iyo ninkan waa reer hebel. hadduu adduunka rogayo waa reer hebel, hadduu maaragtay qaran duminayo waa reer hebel, hadduu dowladnimo baabi'inayo waa reer hebel, hadduu wax dhacayo waa reer hebel, hadduu wax dilayo waa reer hebel. intaasaynu adduunka ka naqaan. adduunkana intaasaynu kaga harnay.
adduun kana maanta inta uu inagu qadarin lahayahay inoo la yaaban yahay 30 iyo dhowr sano inoo la yaaban yahay waa intaas wax kale oo haba yaraatay la inoogu abtiriyo ma jirto dadnimadeennii bay baabi'isay diinteennii bay baabi'isay yani sharafteenii bay baabi'isay wax walba oo aynu lahayn oo Soomaaliya lahayd Soomaali dadnimay leedahay Soomaali waxay leedahay dhul bay leedahay Soomaali qaran bay leedahay Soomaali af bay leedahay Soomaali sharaf bay leedahay waxa soo dhan waxa isku fuuqsaday oo baabi'iyay oo aynu ku baabi'inay ku aasnay reer qabyaaladeed waa reer hebel ninkaan wuxuu doona ha sameeyo ha dumiyo ha duulo ha dilo ha baabi'iyo ha burburiyo ya waa reer hebel maxaa dhacay hadda duulaankan ninka ka dambeeya maaragtay soo abaabulay Cabdirashiid Janan ama Jubbaland badeh maaragtay maamulkeeda dheh oo iyagu maaragtay meesha ku dagaalamayo dheh waxbaana la ka dhacay ama gobol baana la ka dhacay maxaa ka maqan maxay ku gabanayaan yaa difaacaya yaa la socda qabiil baa la socda qabiilkaas difaacaya tacsibu mudan yahay waayo ma noola isagii baa caruurtoodii caawa la aasay maxay ku dhinteen isma weydiinayo waa nin reer hebel kaliya buu isweydiinaya isma weydiinayaan dhalinyarada la jifa ninka soo diraya ciidankan dadkoodu ma weydiin karaan maanta war dhalinyaradayadii maxay ku dhinteen maxay u dhinteen 18 dhalinyaro ama 20 dhalinyaro ah meel ku dhintay maxay ku dhinteen leesma weydiinayo laakiin walaalayaal waxaan rabaa inaan xasuusiyo Soomaaliyeed ilaahay subhanahu wa ta'ala suuratu hud oo nabigu calayhi salaatu salaam uu yiri waa suurada yani timaha ay cadaysay madaxa ay cadaysay ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu kaga sheekayay ummado badan sababta loogu cibro qaadan waayay ilaahay wuxuu ka sheekayay ummado badan qowm nuux hud salih lut shuayb qowm muusa 6 ummadood buu ka sheekayay markuu ilaahay soo dhameeyay qisooyinkoodii iyo meeshay ku ciribtooda ku dambeysay ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri tilka alqura naqussu alayka tilka min anba'i alqura naqussuhu alayk tilka min anba'i alqura taasoo waa qisooyinkii ummadaha oo aanu idin sheegayno idin cadeeno naqussuhu alayk minha qa'imun wa hasid wama zalamnahum walakin zalamu anfusahum hadalka uu fiirso maxay ku halaagsameen maxay ku cirib go'een maxaa qaar lagu jacad ugu dhacday waxa weeye wama zalamnahum walakin zalamu anfusahum waxa kamid ah qolada u dambeysay qisadooda haddana ee qowm fir'aun ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu walaqad arsalna Musa biaayatina wa sultanin mubin waxaanu soo dirnay Musa alayhi salam aayadaha yagi baan la soo dirnay xujjan la soo dirnay ila fir'auna wa mala'ihi fir'aun iyo qowmkiisii iyo madaxdii jamaamirta ahayd reerkiisa ahayd iyo nabadoonadiisii ayaan u soo dirnay fattaba'u amra fir'aun wama amru fir'auna birrashid ilaahi subhanahu wa ta'ala marka diritaankii wuxuu yiri way kala doorteen nabi Musa la idin soo diray fir'aunna waa kan wuxuu leeyahay ana meesha ka taliya oo ka ilaah waxay doorteen fattaba'u amra fir'aun dadkii waxay doorteen nabigii hortaagan oo la hadlaaya nabi Muuse oo wacdinaya bay waxay doorteen inay fir'aun raacaan fir'aun bay shacabkaasu raaceen ummadaasu fir'aun bay raaceen dadka laga hadlayo waa qowm fir'aun qowmkii way ummadii way raaceen fir'aun bay raaceen arinkiisa wama amru fir'auna birrashid buu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala talada fir'aun iyo arinkiisuna mid toosan maaha waa mid lagu hoogo waa mid lagu baabao fir'aun wuxuu u taagan yahay mid kasta oo ummadiisa lumiya mid kasta oo qabiilkiisa ku beer la xawsada oo meel xun u horseeda buu u taagan yahay faraacinadu way badan yihiin marka jamcu fir'aun faraacino way badan yihiin way tiro badan yihiin meel kasteena ka soo baxayaan culimaduna tafsiirka waxay ku sheegaan qof kasta oo ilaahay subhanahu wa ta'ala wadadiisa si cad uga leexda nooc fir'aannimo baa ku jirta marka fir'aanadu waa badan yihiin waxaana laga yaabaa qabiil walba waxa luminaya mid fir'aana baa luminaya mid fir'aan lamida fir'aan oo kaleeta
oo camalka ka shabaha oo hawsha ka shabaha oo yiraahda anaa talada idin hay anaa idin soo dhicinaya anaa sharaftiinahay reer hebel meesha waa ku hoogeen dantoodii anaa wada reer hebel meesha waa lagu quursaday reer hebel meesha waxoodii baa lagala tegay reer hebel meesha arrintooda ay taalo maanta arrin xaqa maaha waxay mudnaayeen ma helin anaa soo dhicinaya aniga iyo rag ila midaa soo dhicinaya idinku xoogaysiiya dhallinyaradana isiiya lacagtana isiiya waa fircoon wey fircoon wey waxaa fircoonnadu inay badan yihiin ku tusinaya nebigu calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi abujahl oo quraysh in badani la socotay oo badar ku hoogtay gaaladii colkii lagu riday fircoon hadi umma waa fircoonkii ummadan wey marka faraacinadu way badan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinkooda saas u bayaaniyay oo cidna ilaahay ma dulmin soomaali ayaan darrada haysata ina wada haysata inagoo dhan ina haysata oo qaxootiga inaga dhigtay oo dhulka ina daadisay oo badaha inagu tuurtay waa fircoonkaasoo miiran waay fircoonkaasoo miiran tusaale u qaata maanta beled xaawo haddii xukunkeeda la rabo maxaa madaafiic iyo dagaal iyo habeen mir loogu soo aadayaa ma laga hadlo ma danteeda la sheegto ما ودفع عن لجور راديو ما دورش لجور راديو إيه ودت توصن ما حق للضلبضو ما لقى الشورو ما لقى هضلو ما حد ديجا دت كانوا محيهين وحكوا توصينيسا دت كفراعنة ده أهل الصومالي أنا واحد بدنا كهل سياسة ده دت كوجدة إيه وح وكجرة أنا قون عدنا كلا صارين وعدنا كلا السوعين waxaan ku sheegay inay intooda badan ilaa man raxima allahu aanay ka fikirin ummad iyo dal iyo dad aanay ka fikirin waadna ogtihiinoo wax badan baan halkaan ama dowladda ha noqoto ama mucaaradkeeda ha noqoto aan halkaan dhammaantood u jeediyey aan dhaliisha u jeediyey welina waa u jeedinaya waana ku taagana saana sida ay ila muuqato wey oo aan u arko xaqa aan u arko ama dowlad ha noqdaan ama ha noqdaan mucaarid مركا إلهي سبحانه وتعالى وحليه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين السبيل المجرمين ومضي هاي سوماليات إلهي دتك مجرمين تاهين عدنا كفكرين ودنتو ذا ما هنا وحكا أن كفكرين دنتو ذا قارك ما هنا وحكا كفكرين إلهي والنوع الدي أما جاقا هدونان أما مدحوين هدونان أما وزير هدونان أما وحكا هدونان إلهي وعدي سبيل المجرمين نفصل الآيات آياتها إيو حجوينك إيو علامتها وحان أعدينا وحوية إني عداته دادك مجرمين تاني عدنا كفكرين دانتو ذقارك أهمويان عدك كفكرين ودادو سيو عداته ودادي وي عداتي هادنا ولا دبر علينا سومالي دانا وي دبر علينا مد والبا قبيل كيسو دبر علينا مد مجرمة وقبيل كيس أهبو دبر علينا مد والبا مصيبة تاسي إنو دعيسا inagoo dhan bayna saaqaysaa carruurtay xaaqaysaa dumarkay xaaqaysaa odayaashay xaaqaysaa inagoo dhan bayna xaaqaysaa waaye afar aayadood oo ilaahay aayadaha walaalayaalow ilaahay aayadaha uu ku caddaynayo soomaali u caddeeyey baan afar aayadood baan ka soo qaadan ilaahay subxana wa tacaala wuxuu leeyahay wakadalika nufasilu alaayaati liqowmin yaclamuun sidaas baanu aayadaha iyo calaamadaha iyo tusaalayaasha u caddaynaa ummad aqoon leh oo wax fahmaysa soomaali aqoon ma u leedahay ilaahay aayadaha uu u caddaynayo maalin walba aqoon ma u leedahay soomaali wakadalika nufassilu alaayaati walacallahum yarjicuun sidaas baanu aayadaha ugu kala dhigdhignaa oo ugu caddaynaa bal inay toobad keenaan oo ka soo noqdaan soomaali haddaynu nahay ma ka toobad keenaynaa qabyaaladda aynu wax ku kala taageerayno oo danteenna guud keliya ma taageeraynaa adduun iyo aakhiro ma ka soo noqonaynaa lacallahum yarjicuun weli lama hayo waana waxa dhibaatadu inoogu socoto caawa meel walba qof loogu dilaayo oo dad loogu dilaayaan cidina isu raaceen وكذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون آياتها ساسا وعضينا أمد فكرته ما فكرنا ولا ليال صومالي ما فكرنا حقي وحنا قصوا عضان سيدي وحنا جايين ضل كان نسيهي ضد كان نسيهي ومضي إنه سيتهي سمعت إنه ما أنت أدونك سيتهي
xaaladeennu see tahay dhaqaalaheennu see yahay innagoo nicmada ugu weyn adduunka ku fadhina oo ilaahayna dejiyey meeshii ugu wanaagsanayd haddana sabool ka nahay faqiir ka nahay cidla taagan nahay laynagu dul khimaarayo kadalika nufasilu laayaati liqowmin yacqiluun ilaahay aayado waxaan u caddaynaa dad caqliga adeegsanaya caqliga aawey caqligeennii soomaaliya haddeenuna aawey caqligeennii caqligii aynu wax ku diidi lahayn waxna ku ogolaan lahayn aawey shacabow anigu lama hadlaayo siyaasi waa horaan tufi waan iri waa horaan tufi dantiisa u shaqaysta mar horaan riday mar hore ayaa nacay dantiisa kaliya ka fikira ma jecel wuxuu doona ha sheegto iyo hadalku doona ha ku hadlo camalkiisaan fiirinaynaa iyo shaqadiisa marka noqosho laynagama hayo oo aqoon diin iyo adduunyo waxa ku socda laynagama hayo oo aayadihii la caddeeyo fikir laynagama hayo oo aayadihii la caddeeyo caqligeenni inuu soo noqdo laynagama hayo marka waxay nagu dhacaya inay nagu dhacaan sidaas inoogu dhacaan maanta waa ayaan darro way dagaalka beled xaawa ayaan darro wey inuu sii socdo oo qaabkaas ay sii socotana ma aha waxay ku soconaysaana wax kale kuma socon lahayna waa Soomaali qabyaalad wax ku taageeraysa way wax kale kuma socoteen caruurtana maanta looguma laayeen maanta meesha looguma laayeen waxaan leeyahay marka war Soomaaliyey ayaan darradan ina haysatay qabyaaladda ee darraad aan ka hadlaynay shalay aan ka hadlaynay ee niman siyaasiyiin iyo nin dan wata lagu taageerayo dadkii ay ahayd maxkamada in la taago ayaa la daba ruculaynaya dadkii ay ahayd in maxkamada la soo taago oo dambiyadii ay ummadan iyo qarankan iyo taariikhdan ka galeen lagu xukumo ayaa jagooyin lala raadinaya madaxweynayaal lala raadinaya wasiir lala raadinaya jagooyin inay qabtaan lala raadinaya abaalgud loo raadinaya iskaba dhaaf inay xabsiga ku abaadaan iska daayay ayaa lala raadinaya Soomaali inaga u sababa qabiil kasta u sababa reer kasta u sababa magaalo kasta u sababa والله أنا عد كلا أجرين إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ضدكو إيجا نفتو الظلمية الرمهانو إيا أيان درهداسو ويسيس عنيسا وين جريسا من استاجيسو إلى ضدك الصوماليات هور ضدك كعان ضدك الصوماليات بان ليه يعني ما أنت إلى ضدك الصوماليات قبيل كي وحكو تاجرين جوجيان قبيلات بيحكو التاجرين دان أبو جرتانا مجرتو dan ugu jirtaana ma jirto marka walaalayaal waxaan leeyahay arintaas waa ayaan darro dhalinyaro inta la soo qaldo dhulkoodii lagu soo maaragtay diro oo magaalooyin saq dhexe iska hurda xabad lagu asqaysiyo waxa la ii sheegay masjidkii beled xaawo oo masjid alqadiim la yiraahdo oo odayaashii ku cibaadeysanayay ee wada xufaada ahaa ay 9 saac iman jireen saaka salaad subax lagama tukan warkay soo gaaray warkaas salaad subax lagama tukan salaadii subax lagama tukan muadinkii markuu dabcan inuu yimaadana noqal yiri noqon meesha waa la haystaa ka bax baa la yiri meesha adami maysid musiibada iyo inkaarta ya ka dhacday meesha bal fiiri adiga aan ku soo khatimayaa waxa iigu daran dad aan garanayo dhalinyaro wadaada ahaa oo diinta jeclaa oo qabyaalad darteed ama dagaaladan qaarkood ugu dhinteen ama qaarkood ay hadda ku jiraan maxay u dirirayaan waa in adeerkay baa doonaya inuu xukumo haye oo hadduu marka isagu xukumayo ma dagaalamaysaa ma Soomaali kale xabad ku asqaysiinaysaa wada toosan ma wax ku raadisid haddii wadadii toosnayd ama siyaasadda lagaaga adkaadana waqti kale ma sugtid ama wada kale ma fiirisid يا ما تذكر الله ينسى ما أمضى بابي ينسى ما مجال دومين ينسى ما تذكر بابي ينسى وحاس وحس حما هريبان وشيء وحنكوس وختيم وركيجا يعني مدحوينها جوبلاند أحمد محمد سلام وأرنت على كسعته أما أكتوذ إيه كده عيسو هوري بان هذا كور فرين هل كانوا ودري وأنا كنت ما يدين تينو سيفي عنو يقانو سياسة دقار كد
آخرها لقوايا أدونا والقوايا سياسة قاركود آخرنا والقوايا والقسيقة أدونا والقسيقة قدوميه هره أو جبلان دي صدر ما ركتي أما وزيركي هره عبد الرشيد جنن oo isagana ciidamadan iyo dadkan soo duulaya wata loo soo dhiibay Soomaaliya qaran dhan baa wuxuu u dumay jabhado Soomaali ah oo magac Soomaaliyeed iyo qabaa'il Soomaaliyeed sheeganaya inay qarankoodii Soomaali ku soo duulaan oo Itoobiya ay soo hubayso oo ay Soomaali ku soo duulaan wayna dumiyeen bil ficli way dumiyeen 10 sano تضباطن يسددي إلى إيوه سجاشن يكودي بجبهة قبيل أي دجالمية SSDF SSS على قدح شيء كرتا سومالي وحنا هين هل كان مقالة هدا نشوفه تركيا عرورتي نيبا ميلها يعصن وبوليسكا تركيا وهبين كي كجورا تردينو يكن حلوة كجورا يوضع الرئيسنا أيها لجورا dhinacan badana waa laga soo qaadaa Greega u dhaxaysa ayaa laga soo qaadaa arurihiini way reer hebel SSS iyo SSS iyo SSS baa dhalay marka Ilaahi subhanahu wa ta'ala cidna ma dulmiyo Soomaaliyay aynu wacdiga Ilaahi qaadano oo aqli ku fikirno oo waxa kan diidno waxa xun aan diidno Ilaahay xaaladan in ku jirno ما بدليو هدان حال كأنه نجوا حسك بدلين قبيلة دا يا مجرمين تا يا دتك ظالمين تا يا دتك وحرقية أو إنه ظلمي أو صعبتم إنه ورير هبل كلينا إنه نسكت إنه رنتاس إنه كوان تونه أيات دمانتين سومالي أو العافمات كذا كجرا أديك لا توحويه وأنا نفتي إنه تعزينه سومالي دبك هايستا إنه سدا سهانا يهدي يعني سداس يكسي جرتو أنا وحبك بدلين إلهي سبحانه وتعالى توفيق لسانه وفجير ربنا سبحانه وتعالى أنت الصومالي كدي من يسا إلهي سبحانه وتعالى يا مسلم كاهون حريستو وحي دبكو وضنا إلهي سبحانه وتعالى هكا قبتو إلهي سبحانه وتعالى تلدي أن هتوسيو ربي سبحانه وتعالى هنقوها نوني وضدي ستوصل صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين